ولا الذي لغول لنا يهلكا أمر كسوق يا وافري دجالك جرى وإلى يدخل تدخل الدفاع ونيجي الدفاع وعاركين الدفاع ومقالدين الدفاع وإلى يدخل رؤيه وحلا يدخل صعدا وجريه نية ما تدي إلا اللي يكون حي ماذا كهرتجا أو دفاع لدتكين يدلك kadib go'aamadii marka ay ku dhawaaqeen maamulka nidhaahday Reexaatumo in dhawaalaba odayaasha iyo garaadada cuqaasha iyo waxgaradka reer Sool Sanaag iyo Cayn deegaanadaasi ku sugnaa ay kaga dhawaaqeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayay saaka soo weerareen ciidamada maamulka Somaliland kadibna waxa ay ku qaadeen weerar halkaasina waxa socda dagaal ilaa iyo 6 saac soconaya dagaalkaas oo dagaal aad u culus ee waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi aan waxba la isu reebanaynin hadaba daawadayaal barnaamijka waxaan ka wareysan doonaa haduu rabeedmo saaxiibkay Gooni oo inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanadaasi Gooniyow ku soo dhaw stuudiyaha hadii aan ma garanaysaa gudaha gallo dagaalada ka socda deegaanadaasi bal marka hore waxaad noo sifaysaa go'aamada ka soo baxay shirka kadibna bal dagaalka ayaad nagu xujin doontaa haduu rabeedmo laakiin qodobada maxaa kamid ahaa bal wax nooga tataabo فرقدو aad iyo aad u maasan tahay sidii la filayo dagaalka horta inuu markii qodobada lagu dhawaaqo inuu dagaalka bilaaban doono shakil aan ay ahayd ciidamada Soomaaliland halkaas ay ku sugnaayeen qodobada ka soo baxayna waa SC in loo daayo go'aankeeda shir ayada ay qaadatayna ay go'aan ku gaartay dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Yurub iyo midowga Afrika iyo adduunka dhanba inay og yihiin in ay qaatimo go'aan gooni ay qaateen waxa kale oo ku jirta in Soomaaliland ciidamada si degdeg looga saaro deegaanada SC ama qaatimo marka arrimahaas oo dhan isku soo wada duube waxay cadeeyeen in aysan u baahneen saacada wixii ka dambeeyay Soomaaliland aysan kamid ahayn marka waxyaabahii la diidanaa oo Muuse Biixi Cabdi oo diidanaa taas ay ahayd inuu dagaal bilaaban doono markii go'aanka lagu dhawaaqana waan sheegnay hadana dagaalka ayaa bilowday saacadii 7 saacadood xiriir hada dagaalku socdaa saaka aroortii ayuu bilowday ilaa saacadan uu socdaa marka xaaladdu way adag tahay 7 qofood oo dhimasho ah oo kamid yahay afkaab ninka la jiro oo nin caan ah oo saraakiisha SSC kamid ah ayaa ku dhintay 7 qofood oo kalena way dhimatay 18 dhaawac isbitaalka ayaa la geeyay oo agaasimaha guud ee isbitaalka Laascaanood ayaa sheegay in 7 qofood oo dhimasho ah iyo 18 dhaawac la keenay rasaastana wali ay socoto marka fargadu xaaladdu halis ay maraysaa dhanka Soomaaliland dhaawac ay jiro waxa kale SSC qaatuma jabhadeeda ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen maxaabiis dhankaasi Soomaaliland ay ka qabsadeen laakiin dadka uma soo bandhigin oo afka ay ka sheegeen marka waxay kale sheegeen in meedadkooda ay qaadan laayihiin ee magaalada banaankeeda daadsan yihiin wali xabadu way socotaa rasaasta waxa u malaysaa inay si balaaranayso marba dhinacan ay ku sifidayso rasaasta marka waxaan dhihi karnaa fargadu xaaladii laga baqayay iyo dagaalkii laga baqayay way dhacday Muuse Biixi Cabdina gacantiisa ayuu SSC isaga saaray mar haday rasaas bilaabatana xaaladdu meel xun ay gaaraysaa rasaasta intay san bilaabanin ayaa waxa la xalin karaa oo wax la xeerin karaa teeda kale odayaasha garaadiyada waxay sheegaan wixii wada hadal ah iyo waliba arinta dib looga laaban karo iyo lagu heshiin karo iyo wax la isfahan xataa hadoo dhici lahaa in xabad ay bilaabatay marka haday xabad bilaabatay meeshii la gaartay ayaan la tageynaa Muuse Biixi Cabdi هذا هو مقطع مدام وقتي سلام هذا إنه واحد عيب أكيد تيجي دونه إن سومالان جوده هذا مدام ومعارض كمركور اسكودري هذا أو اسكودري إن SSC حبض إن أي صعوته هذا ما عنده حالة حن مريسة وحكى له الشيء إنه فرقليش شيء وكجرته وكم ده إسماعيل عمر قال وقاد أبوش كرينا إن دقال وقع هذا نمكن لي هذا SSC إن دنت وكله أنا لو كان كرنا مركب واحد يعكرته حاولوا إن كسي درته دقال كن واسع ذا مرة مركز كسي دم بسنة دت كلا يا سكر ده أو دقال كل إنتي فرقوا إن دت شعب أيان كجرو إن دت aad u far badan oo ciidamada ay dhanka SSC min gurmad ahaan u soo gaaray in magaalada Laascaanood waliba hub aroorsi aad u culus ayaa jiro xaaladdu meesha ku dambeyn doonta fargooda la mooga ninka la yiraahdo Gooniyow xaaladdu way culus tahay dhanka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waxa isaga imaanaya gurmadyo fara badan oo lagu baaqay garaadka guudna wuxuu ku baaqay inay guud ahaanba iska difaacaan wuxuu ugu tilmaamay beelaha ku soo duulay iyo maamulka Somaliland hadaba arintan waxa la dhihi karaa meel xun bay ka deganaysaa maadaama oo labada dhinacba aad u moodahatan inay taladii faraha ka baxday aad shalay waxaan xasuusanaa ceel afweyn wixii ka dhacay oo nin dadka deegaanka kamid ah lagu dilay waliba banaanbax aad u culus oo ka dhacay ceel afweyn qofna lagu dhaawac qofna lagu dilay markaas saanta socotay iyo bariyihii la soo dhaafay Sool iyo Sanaag xaaladooda sida ay ahayd waxaad u malaysaa in markaas dambe xaalad halis la sii galay marka in waxa wanaagsanaa lahayd in xabada xal aan ahayn la keeno Soomaalida waxa u malaysaa dadka siyaasiyiinta ah inay jecel yihiin in xabad wax lagu xaliyo halka wax lagu xalay ninkan Muuse Biixi Cabdi waxa la yiraahdaa nin dictator waa nin macna ahaan jiray
ciidamada cirka kamid ahaan jiray dowladda Soomaaliya waxa la leeyahay waa nin aan naxariisanin jabhadii SNM na wadan jiray dad fara badan soo xasuuqay marka nin askari haduu yahay mayal adag yahay wuxuuna aaminsan in xoog la isku maqooniyo xataa guryaha waxa leedahay qoysaska xataa ninka askariga oo qoyskooda xaafadooda haduu joogo askariga waa laga baqaa mar walba waa nin mayal adag oo go'aankiisa banaanka yaalo marka waxa la dhihi karaa ninkan adeegiisa ayaa dhibaato fara badan keeni doono dagaalkuna uu sii socon doona laakiin waxa wanaagsanaa lahayd dadka dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeyso inay ka qayb gasho waawaanta iyo colaadda si loo joojiyo si aan dad kale loo dilin oo hadda nool xaaladuna meel hoos ay maraysaa marba hadii waqti hore ayadoo ah 18 qofna isheeg dhaawac la geeyay 8na ay dhimatay ولينا أن ولي داوعيد مالها إذا تكداوع على جسوه لا يدمشاد على جسوه لا حافظها مقالة لا سعنود حالته حال السواء مركا لانك سومالان waxay sheegayaan in ayagana laga dilo 10 askari laakiin NSC dhankeeda ayaa hada shay Soomaaliland wali wax meesan hadlan oo meesan sheegin wixii ka dhintay laakiin way aamusan yihiin saraakiishan waxa malaysa laakiin waxa la sheegayaa in dagaalka Soomaaliland ay ku jabtay oo maxaabiis ba xataa la soo bandhigay ay la tilmaamayo in ma garanaysa maamulka Soomaaliland laga qabtay dhimashadoodana ilaa dhowr iyo 10 bay gaadhaysaa askari ayaa la tilmaamaya وفرقده واضح لكن أنت صحافة الشيء يسوي إذا صحافة كهذا ليه أو برنامج كان صوب بدي جاي وحالنا إن SSC كلية أي هذا ليسو إن كان كلا هذا استدفاع لهين أما هذه بين لهين با أيه ولي مثلا هذلين أو حوا دجال كي يكون مش قرصين لكن ده كانوا حملة SSC إن يساعد سكو حريين الشعب كي يعيد ماضي ويحرن سكو حريين أو قاركود ده كجوابنا ين أو مليين دجال كهلا قالوا وليين جميسي دون منه إن لما قبسن كرو إن من العبسين كرو دجال إن ودينا لا دجالنا وندفاع عننا إن ليهن وليبا مركز دنبيسو شعب بنام بحيو وليبا إن ذاتك اللي رجلنا يو راشين كينا يو عيد مدرسة وكينا يو مجال كوسويا عي مركز وحوم على SSC إن كسي في فرعيهم برزو مالهم الدجال كيكو أنت إن رمضان أما إن دول حرستا إن كيكو أنت أملسا وحلا أركها هي قبله بيه يو عانى يو وحيابا أد وده بود الراشين أو عيد مدرسة سيد أد ودي رجلنا يو حنا للتلمام يا عيد مدرسة الصومالي لمرر كوجودن بيسي إن أي مدرسة هو بيال كوجراعين ذاتك شعب كيوسو جرمانية سيدان أي دمشق فرح بدنا كوي معتي أجد مقالة مدافع بدنا لو جراعي أو لو توري إن دور مدفعي أنا مقالة لو رح توري تاس أي دبعتك أنت وضد شعب مقالة جسيد كل جو أي كل عين اللي هو بياش أي تورين علم الصومال تنجي أدو فر بدنا أنا مقالة لو جراعي لكن دجالك لأنك هو سمر كور دجالك حبض أي عادو سعته مدة سعتي لكن دور مدفعي لو توري مقالة جديدة تاس دواعي مش بدنا أي كنتي ولينا دجالك وصل على فرقه استب أما ساعة أما لو ساعة نوسو جود من دونا إن ماشى وحمريان وحنا وجان دونا ماشي كده بس ما دام حالته يسوون أكسنين إن دولة الفدرال الصومالي اللي قربين عرضنا سوفر جلسوا إن مامل جوالدي ذكرنا إن عرمان سوفر جليان دجال كنا لقبوجيو حالته إن سي عندك الصومالي اللوط لمينين أو مرة ما في عنو إن دجال لوضع أو دجال وحلوه حل ما نقنيسه فرقدو ده الصومالي دجال وكسر داشي دمشي دب وكسر داشي يداوع وحقوق أكسنا لهات إن هدي حتى عددك أنت لو يرى إن مصبيح عبد الله يراه دتك ورك كمقلاي أنت ويران أدان نيهو إن دجال وحكوا حالين لمن كان هديجو أيان حر كديك شلي أيوة كوبيرية 2 أو 7 كهر وان نولد أذان كل جرين إن SSC بل إذنكو إسكت دات كان حسكن ولا معمول هالنقدانو إن دوات هذا فرحة بدل أنت كسر للهد والشعب الحسوق له ضد مدافع وقرع عاد بري محكوم كرتدي مصبيحي وحالة ترتيبي oo dadkan faraha ka qaad go'aankooda maamulkooda ha sameystaan haday bari meel isgeyn waayaan is socodsiin waayaan ama maamulkooda ay meel gaarsiin waayaan ayaga markaas aan dad ku darsami doono dhih doono Soomaaliland oo gacantina ku laabanayna waa qaldanay ama Puntland ku biirnay ama dowladda Soomaaliland ku biirnay ayaga dhihi doono laakiin inta ay iswadi karaan ee go'aankooda gaari karaan oo ayaga ismaamuli karaan haloo daay maamulkooda maamulada jiro dadka kamid ah ha noqdaan Musabbih Cabdi waxa fiicnaa lahayd inuu saan wax ka duwan ama xal saan ka duwan inuu keeno xabad wax ma xaliso waxbay si kala fogeysaa sheekadu inta way ka sii weynaanay gurmadiyadu inta way ka sii badanayaan marka intaysan xabadu sii badan ama baasha qabiil iyo balaayo kale aysan gaarin waxa wanaagsan insaan wax laga xal laga keeno oo dadka Soomaaliyeed aan la isku dhameyn dadka Soomaaliland waa dad walaalahayna SSC waa dad walaalahayna kulliga dhamaantood waa dad Soomaaliyeed marka anagu ma rabno in dadka la laayo waxdana nagu ma jirto anaga marka waxaan hadda Soomaaliland ku eedeynayno waa maamulka dadka shacabka Soomaaliland dad dhibaato qaba ma aha dad ummadda nacabna ma aha dad Soomaalinimada ka guurtayna ma aha waa dad wanaagsan laakiin ninka Musabbih Cabdi ayaa wuxuu yahay nin adag waliba shacabka Soomaaliland naftikooda dhib ku haya maadaama ogeynay inta mar oo dhibaato ka dhacay Soomaaliland gudaheeda oo xoog wax ku xalinayo ciidan wax ku xalinayo oo gabdha Soomaaliyeed Hargeysa lagu dhex jiiday inta lagu hala qabto haraatibaarka la gelnay oo xildhibaanada iyo barqad batuun yar kale ay kamid yihiin lagu dhaawacay oo wariyaasha lagu xirxiri jiray
marka maamulkan cabdimaalig coldoona kamid dadka la xiray marka ninkan sidiisaba waa dictator wuxuu arkana inuu xabad iyo xoog ku xaliyo oo raba taasna xabad iyo xoogna wax lagu xalinayo 32 sano Soomaaliya isdagaalaysay oo xabad iyo dagaal ku jirtay wax ka soo dhaasay cadwada ma laha qowro fara badan ka faa'iidnay xaalad hal qaboojiyo saan si ka duwan wax loo dhigo dadka Soomaaliyeedna nabad ha lagu soo dhaxdabaalo fargado gooryo su'aasha ugu dambaysa waxa weeyaan maadaama haatan uu dagaalkii qarxay oo labada dhinacba hubka noocyadiisa kala duwan ay soo adeegsanayaan maxay ku dambeyn doontaa baad is leedahay والله horta meel fiican kuma socoto marba hadii dagaalku oo bilowday baashina ay socoto xabada intaysan dhicin xal ayaa jiro hadda naftigeeda xal ayaa jiro xabad waa la joojin karaa xabada markii la joojiyo kadib waxa la raadin karaa xal ان معناها وارا او ددكان kala xadeeyo ama go'aan ku gaar dadkan in la kala xadeeyo ama go'aan lagu heshiis lagu mideysan yahay in la sameeyo mar hadii la hadlo waxba ka soo baxay marka xabada in la joojiyo oo xal la gaar way wanaagsan tahay laakiin sida hadda ay ku socoto meel fiican kuma socoto reer SSCna waa dad qiraysan waa dad kacsan waa dad laga laay in maamulka Soomaaliland waxay ka sabri laayihiin SSC oo ka go'day oo culays weyn ku noqon doonto waliba Puntland inay u galaan ka sii nacbeen dawladda federaalka Soomaaliya inay u galaan waxay ka sii nacbeen inay Puntland u galaan oo Puntland ay leeshiyaan taasay ka cararayaan waxa ugu daran oo musbiixi maamulka Soomaaliland ay diidan yihiin waa inay xiriir la sameystaan maxaa la yiraahdaa nimanka Puntland oo siciidan ay hoostagaan taas ayaa ka dhimanaya marka hadii dawladda Soomaaliya toos u hoostagayaan xataa waa iska sabr lahayn nimanka la yiraahdo Soomaaliland laakiin waxay ka dhimanayaan ay aad ugu dhimanayaan inay reer Puntland xiriir la yeeshaan Puntland iyo ayaguba way isla dhulagyihiin nimankan maamul gooni oo reer Khaatuma la yiraahdo rabaan inay sameystaan oo dawladda federaalka ay ka mid noqdaan taas hadda naftigeeda xal waay waxba dhaamaan hadii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku biiraan ay dhahan anagu maamul aan nahay dawladda Soomaaliya anaga waxaan aan ka rabnaa aydan hoostagayna wax walba wixii tasiilaadana dawladda uga dambeeyna hadii dhahan Muuse Biixi Cabdi war meesha uma yaalo inuu iska aamuso ay noqonaysaa laakiin xabad waxba lagu xalin ma hada maanta 100 qof oo SSC aad disho wiligoodii allahood xataa waxa way Soomaaliland la midoobay waxa fiican adoona dad dilin oo inta horena ka waantoobay inta horena macna la yiraahdo liga cafiyo wixii tasiilaad iyo wixii qalad aan galeen ahliga cafiyo wajiga dadkana madaxa u dhiibto jira waa qaldamay aan heshiino wax alla wixii dii iyo wixii qalad dhacayna ana dush saarnay inta soo dheelaha RSC wadad Soomaaliyeed waxay dhila waayahaniyo waa isgaratay aan ku cafinayna laakiin asagu ninka isgaranay ma aha nin xanaaq iyo gafurtaag iyo hub iyo taangiye iyo Ismaaciil Cumar gal wax ka soo arursay iyo wax soo arursana Soomaalida hub iyo taangiye isku arursay taxta ayadoo taangi ayadoo ridaa wili la fuuli jiray baagsiyaad bar wax xasuusana dagaal ko socdo oo nin taangi ridaa loo fuulay marka dagaal wax faa'iido ma laniyo taangin wax uma taro dagaalka hal iska daayo dadka Soomaaliyeed ayaa la dilin wanaag ha lagu dhameeyo aan dhihi lahayn wanaag ina ku dhamaatana rajeynayna fargudo aad iyo aad u mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa goonooyinta badan ka faalooda arrimaha sool sanaag iyo cayn daawadayaal barnaamijyadana dambe ayaad ku maqli doontaan waxyaabihii ugu dambeeyay inta ayaana ku soo gabagabeynayna tan dib dambe u kulmi doono mid kalmad lamada waxaan kaga taganaa sida ay nabadgelyo